Lesson 2. People at school. Dadka jooga iskuulka. A teacher macalin. A student arday. An office keeper waardiye. A boy wiil. A girl gabar. A man nin. A woman dumar. What is that? Kaas waa maxay? That is a teacher. Kaas waa macalin. What is that? Kaas waa maxay? That is an office keeper waardiye. What is that? Kaas waa maxay? That is a student. Waa arday. What is that? Kaas waa maxay? That is a woman. Waa qof dumar ah. Laba qodob oo ka hadlaya casharkeena. Wuxuu ka hadlayaa dadka iskuulka jooga. Macalin iskuulka joogaa. Arday iskuulka joogaa. Waardiyaha iskuulka joogaa. Ardaydu waxay u kala baxaan boy iyo girl, wiilal iyo gabdho ay u kala baxaan. Macallimiintu waxay u kala baxaan man and woman, rag iyo dumar ay u kala baxaan. Waxaa kaloo casharkeena uga hadalnaynaa oo la rabaa in la fahmo what is that? Kaas waa maxay? Kaas waa maxay hadaa lagu dhaho ama sidee lagu dhahaa oo kaas waa maxay waxaa leedahay what is that? Marka saas loo fahmo.